assalaamu calaykum ku soo dhowaada muuqaal cusub. waxaad naga daawanaysaan janalka Salma Vlog and Entertainment. waxaan soo gudbinaa dhacdooyinka qarsoon, sheekooyin, vlogyo ayaan soo duubnaa. sidaasoo kale xubnaha ma ogtahay, toosiyaha jacaylka iyo arrimaha qosol iyo qaraaxo ayaa daawataan. muuqaalkanna waxa uu ku saabsan yahay xubinteennii ma ogtahay. xubintan waxaan idinku soo gudbinaynaa daawadayaal sida dadka badankood aysan ula socon mid ka mid ah isticmaalka adeegyada internetka baraha bulshada oo gebi ahaanba hawada ka baxay. marka loo eego qaladaadka ka dhacayay muddooyinkii dambe shabakadda Facebook, midda YouTube-ka iyo aaladda WhatsApp-ka ayaa haddana badi dadku aysan saameyn taban ku yeelan marka loo eego xallin degdega oo lagu sameeyey. malaayiin qof ayaa adeegsada shabakadaha internetka ay bulshada ku badan tahay, tiyo weli ay shabakadaha Google iyo Facebook ku kala jiraan dunida oo dhan. kuwada loogu isticmaal badan yahay kaalmaha koowaad iyo labaad. kaalinta saddexaad waxaa ku jira shabakadda YouTube. Twitter-ka iyo shabakadda Likee ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka loo isticmaalo. sidaasi la mida Instagram ayaa noqday mid ka mid ah malaayiin qof shabakadaha ama aaladaha internetka ay baraha bulshada ku badan tahay ay dadku sanadahan dambe adeegsadaan. beled iyo baadiyo waxaa gaaray internetka simikaarada mobilada lagu qaato, taas oo sahashay in ay laba jibaarmaan dadka adeegsada internetka. Afrika oo dadkeedu dhaqaale ahaan liitaan, haddana waxaa badi dadka galbeedka qaaradan Afrika iyo geeska dalalka dhaca la sheegaa mujtamac badan inay ku soo biireen adeegsiga internetka 5 sano ee la soo dhaafay. Soomaaliya 80% dadkeedu yar iyo weyn waxay isticmaalaan baraha bulshada 24 saacadood. waxaa laga yaabaa in 15 ilaa 20 saacadood dad ku jira qadka internetka oo online ah laga helayo gudaha Soomaaliya marka la joogo Yurub iyo qaaradda Aasiya iyo xitaa Latin America. saddexdaas qaaradood waxaa la sheegaa in dadku ay waxa ka mashquuliya inay baraha bulshada iyo internetka adeegsadaan ama ay ku badnaadaan shaqooyinka iyo waxbarashada, oo waxay dhifi naadir ku noqdaan dadka iyagana ku sugan qaaradda Australia. sanado dad aan ciwaankooda active ama online soo noqon ayaa laga helayaa dalal dhowra oo qaaradahaasi ku nool. tuluucda waxay tahay abka waxa lagala soo dego waxaa laga tiray shabakadda Imo oo video call iyo sidoo kale mid call ahba dadku ay isticmaali jireen, si la mid ah aaladda WhatsApp-ka. in shabakaddaas Imo musallaftay oo sidaas Google Play Store-ka looga waayay iyo arrimo cilad ku timid ayaana weli la ogeyn. maamulka shirkaddaas weli wax faahfaahina ma aysan soo saarin. dad badan oo aan aniga ku jiro ayaana tijaabiyey xalay oo ka waayay abka Imo Google Play Store-ka. bal isku day adigana daawade oo hadda eeg ama fiiri, Imo ma isticmaali kartaa adigana daawanaya. gudahaana daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ma ogtahay. anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo saaray. waxaad ka daawanayseen janalka Salma Vlog and Entertainment. haddii muuqaalkan aad ka heshay fadlan subscribe noo saar. haddaad hore noola joogtana waad mahadsan tahay. muuqaalka like ku dhufo haddii uu ku soo jiitay. muuqaalkan mid la mid intaan isku arki doonno daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.